بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد meel kasto aad naga daawanaysaan waxaan idinku salaamayaa waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalmahan qiimaha badan bisha barakeysan ee ramadaan waxaan la nooleynay waxay tahay qisadii nabi muuse calayhi salaatu wassalaam waxaan soo gaaranay nabi muuse inuu ka baxay asigoo cabsanaya ordaya magaalada masar uuna aaday magaalada madyan asigoo uusan qofna ka aqoonin meesha ay tahayna uusan ogeyn isbuucyo uu lugeynayay magaalada asigoo dhuumoosho iyo wixii la mid ah u socdo yacni wixii la mid ah taa awgeeda markuu yimid magaalada madyan wuxuu imaaday waxay tahay wajda ummata min annaas wuxuu si imaaday waxay tahay magaalada meesha lagu kulmi jiray waagi hore magaalada waxaa lagu kulmi jiray waxay tahay meelaha lagu waraabin jiray xoolaha ay wixii la mid ah sida hadda santarumyada ama kafeetariyada ama meelaha wax lagu cawo iyo wixii la mid ah ama suuqyada lagu kulmo waagi hore waxaa lagu kulmi jiray waxay tahay meelaha lagu waraabin jiray ceelka iyo wixii la mid ah maadaama dadka ay xoolo dhaqatay iska ahaayeen meeshaas ayuu yimaaday kadib markuu meesha yimaaday asigoo rajeynaya inuu meesha wax ka sii helo ama wax uu ka sii samaysto uusan aqoonin meel u socdo ayaa wuxuu arkay waxay tahay labo gabdho oo meel gees ah joogaan ummadii meesha ku kulanta oo dhanna ay mashquulsan yihiin qof kasta uu xoolaha u wato uu dhaaminayo biyo uu siisanay oo meesha ka dhaqaaqayo laakiin labadan gabdho xoolo bay wataan meel gees bay taagan yihiin waxna ma sameynayaan dadka bay iska fiirsanayaan kadib markuu nabi muuse uu la yaabay arrinta cajiibka badan magaalada ay mashquulsan yihiin labadan gabdho meesha ay joogaan iyo gabdhihii u tagay wuxuu ku dhahay waxay tahay ma khatbukuma idinka meeshan aad joogtaan maxaa idinku dhacay maxaa idin helay oo dadka xoolihiina yani keensteen maxaa u raawin weyseen nabi muuse calayhi salaam uu la yaabay kadib waxay dhaheen waxay tahay laa nusqi xataa yusdira riica anaga dadka ma dhexgeli karano oo rag badan baa ku dhex jiro anaga ma dhexgeli karano oo maxaa la dhihi jiray markii ay dhammaystaan ay baxaan ayaan maxaa la dhihi jiray ayaan waraawinaynaa argeeni wixii la mid ah wa abuna shaykhun kabiir anagan ma lihin qof oo xoog badan oo arigan iyo xoolahan oo dhan nala waraabiyo ma lihin wa abuna shaykhun kabiir aabaheena waa qof oday ah oo sheekh ah sheekh macnaheedu waxay tahay qof oday ah oo aan awood oo lahayn qof oday ah oo daciif ah oo wax yani tabar aan lahayn oo wixii la mid ah anaga caawin ayay dhaheen labada gabdhaha qiimaha badnaa kadib ayaa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam asigoo dhibaato dhib haysta gabdhihii buu wuxuu gudagalay inuu caabiyo inuu waxooda u sameeyo arigii u waraabiyo iyo xoolaha ay wateen oo dhan wuu u waraabiyey iyo wix la mid markuu u sameeyey kadib gabdhihii way baxeen markii gabdhaha ay baxeen kadib waxay tahay walaalayaal asigan gees ayuu sii fadhiistay meesha waxaan ka baranaynaa waxay tahay in qofka wanaagsan mar kasta uu jecel yahay inuu qof caawiyo xitaa asiga ha dhibaateysanaado asiga ma ka daalayo ma ka caajizayo inuu qofka kala caawinayo sidii nabi muuse calayhi salaatu wassalaam uu sameeyey qofka wanaagsan calaamadiisa waxaa ka mid ah farxadaada waa farxadiisa sababtoo ah nabi muuse calayhi salaatu wassalaam asigoo dhibaataysan farxad wuxuu ka raadiyey waxay tahay inuu caawiyo labada gabdho oo dhibaatada haysta qofka wanaagsan calaamadiha lagu garto waxaa ka mid ah walaalayaal inuu qof u ixsaan falayo u wanaajinayo asigoon abaalmarin ka raadin ama abaalmarin uusan weydiisan calaamadaha qofka wanaagsan waxaa ka mid ah qofka markuu wanaajiyo ma weydiisanayo abaalmarin sidii nabi muuse calayhi salaam uu sameeyey wuu wanaajiyey asigoo baahi u qabo inuu cunto cuno maalmo dhan uusan cunto cunin culimada qaarkood ay sheegaan inuu geedka warqadaha caleemaha uu cuni jiray wax ma haysto meeluu hooyda ma haysto bannaankuu seexan jiray waxuu cuna ma haysto asigoo sidaa ah dad ixsaan uu u sameeyey muusan weydiisanin abaalmarin sidaa ayay ahayd dadka dhaqamada wanaagsan ilaahayna subxaanahu watacaala baraya kadib ayadoo sida ay tahay markuu wanaajiyey waxooda uu u sameeyey ayagana iska baxeen nabi muuse geed hoostiisa ayuu fadhiistay wuxuu dhahay waxay tahay rabbi innii lima anzaltu ilaya min khayrin faqiir rabbiyo wax kastoo wanaagsan yacni oo khayr ah haba yaraata aniga waa u baahanahay ilaahiyo wax kastoo wanaagsan haba yaraato aniga faqiir ayaan u ahay waan u baahanahay yacni ducada ambiyada waxay ducooyin ka duwan ayay ahayd nabi muuse calayhi salaam markaan weli risaalo looma soo dhiibin laakiin hooyadiisa waxay haystay waxay tahay diimaha
reer bani israa'iil oo ah in ilaahi subxaanahu wa tacaala lagu xirmo. kadib nabi muuse tarbiyadaas iyo dhaqankaasi waxay bartay waxay tahay mar kastoo dhibaato haysto inuu gacanta ilaahi subxaanahu wa tacaala uu taagan jiray u dhihi jiray ilaahayow i caawi wixii la mid ah. qalbigiis ayaa wanaagsanaa, dadkana wuu u wanaagsanaa nabi muuse calayhi salaatu wassalaam. nabi muuse calayhi salaatu wassalaam wuxuuna barayaa waxay tahay inaan dadka aan caawino. nabi muuse wuu dhibaataysanaa, asaaba maantoo dhan socod iyo daal iyo maalmo dhan cunto xitaa muusan cunaynin ayaa ayadoo saas ah haddana laba gabdhood ayuu caawinayaa. asiga u baahan caabitaan maxaa ka wanaagsan? qofka wanaagsan xilliyada adag xitaa wuu wanaagsan yahay. nabi yuusuf calayhi salaatu wassalaam asigoo la dhibaateeyey xabsiga la geliyey ayaa xabsiga asigoo ku jiro xitaa laba qof ayaa u yimaadeen waxay ku dhaheen ma taqaanaan innaa naraaka min almuxsiniin, waxaan ku aragnaa waxay tahay inaad tahay qof wanaagsan. markuu xabsiga ka soo baxayna oo asigoo boqor ahna wuxuu ahaa qof wanaagsan. yacni qofka wanaagsan marna isma bedelo, asigoo dhibaataysan xitaa dadka u caawinaya, wax walba markuu haystana dadka ayuu caawinaya. walaalayaal way kala duwan tahay qof dhibaataysan inuu qof caawiyo iyo qof aanan dhibaataysnayn inuu qof caawiyo isku mid ma ahan. qof walaalayaal adigoo deyn lagugu leeyahay ka waran qof kale yacni deyn lagu leeyahay haddaad sii caawisid soo shay ka sii qurux badan soo ma ahan, soo darajo kale soo ma ahan oo wanaagga ka mid ah. adigoo murugaysan ka waran qof kale oo murug haya haddaa aragtid aad niyadiisa dejisid adigoo arrintaas u baahan. yacni caabitaan adoo u baahan, adooba gargaar u baahan, qof kale haddaa u gargaarto waa shay kasii qurux badanba. haddana yacni sababta ugu gargaaraya maahan inuu danka leeyahay, gabdhahaas inuu damacsan yahay ma ahan. sida hadda dhalinyarta qaarkood hadda waxay sameeyaan waxay tahay yacni qof markay caawinayaan ama wixii la mid ah waxaa laga yaaba xitaa gabar hadda hadduu caawiyo waxaa laga yaaba waxay tahay kadib inuu dhaho waaye lambarka ii qoray dana kale laga yaaba inuu leeyahay. laakiin nabi muuse saas ma ahan. sababtu caawinay waxay tahay uu kaliya bas ajro ilaahay ka rabo bas la isku dhabaatay. diinteena islaamkana arrintaas aad iyo aad bay inoogu dhiirigelinaysaa khaasatan bishan barakeysan ee ramadaanka. nabi sal sallam wuxuu leeyahay mataqaanaan axabu nnaasi ila allah, kuwa ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ugu jecel yahay waa miyaad rabtaa ilaahay inuu ku jeclaado? allahaasoo iska leh dhulkani cirkani buurahani baddani wax walba hadduu ku jiro oo dhan ilaahay hadduu ku jeclaado maxaa kaa maqan? wax walba markaas ayaad helaysaa, wax walba markaas ayay ku fududaanaysaa, dhibaato walba markaas ayaad ka baxaysaa. allah hadduu ku jeclaado wax walba waad haysataa, wax kaa maqan ma lahan. ma rabtaa jacaylkaas? jawaabtu waxay tahay waa haa. nabi sal sallam wuxuu leeyahay axabu nnaasi ila allah anfacuhum linnaas, kuwa ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ugu jecel yahay waa kuwa dadka anfaca, kuwa dadka caabiya, kuwa dadka u gargaara, deynta ka qaada, ilinta ka titira, yacni dhibaatooyinka iyo murugta iyo welwelka ka feeda, u gargaara, caawiya, dhiirageliya, rajadooda dib u celiya. yacni inaad dadka u gargaartid oo dadka aad anfacdid, dadka aad caawisid, dadka aad wax u tartid, taa ayaa lagu helaa jacaylka ilaahi subxaanahu wa tacaala. farxad inaad sabab u noqotid farxadda muslimiinta, dadka farxadda inaad sabab u noqotid. qof dhan ka waran walaalayaal, qof dhan maanta dhan soomnaa, yacni adiga hadda sabab u noqotid inuu helo afur ama wuxuu cuno, farxaddu farxay ka waran. ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa adigana ku jeclaanaya wallah. haddaba caawi dadka haddaad caawisid ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku caawinaya. dadka u gargaar, ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku gargaaraya. walaalayaal adduunkan way wareegataa. maanta dadka haddaa u gargaartid, aad caawisid, wax aad tartid, adigana beri ayaa qof kale ku gargaaraya, ku caawinaya. sidoo kale bilcaks, dadka haddaad dhibaataysid oo murugtoodii welwelkooda ka shaqaysid, adigana qof kale ayaa murugtaadii dhibaatadaada ka shaqayn doona berito. haddaba walaalayaal dadka aan caawino, dadka aan u gargaarno. wafcalu lkhayr, sameeya wanaaga buu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. wanaaga aan samayno, dhibaatada aan dadka
ككو قادنا إن شاء الله تعالى قاراهان بشن بركيسن رمضان سي الله سبحانه وتعالى ونوجع هذا أجرنا أن أهلنا